السلام عليكم كلنتي wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel bo aad dunida ka joogtaan kulli soo dhawaada barnaamij gaar oo aan ku eegi doono xaaladaha guud ee naafada waqtigaana sida ay tahay iyo su'aalo badan oo aan weydiin doono insha Allah oo xitaa mararka qaar soo gali doono arrimaha bulshada barnaamijkeena waxa marti inoogu ah oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ugu jira inaan dhalinyaro ah oo araga naafaka ah magaciisa asaga ayaa inoo sheegi doona si aan u barano annaga iyo daawadayaasha ku xiran channelkani Rajaside Media ku soo dhawow aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Ustaad Cabdisalaam marka hore waan ku mahadcelinayaa Ustaad Cabdisalaam magacaygu waa Cabdiqaadir Muxidiin Abuukar oo loo yaqaano Mr. Xawaale oo dhaqdhaqaaqa arrimaha naafada gaar ahaan wacyigelinta naafada iyo dhiirigelinta iyo horumarinta Cabdiqaadir waa mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay ku soo dhawow waxaad inoo gashaa wax yar marka hore taariikh nololeedkaaga oo kooban magacayga marka hore sidaan sheegay waxaa la yiraahdaa Cabdiqaadir Muxidiin Abuukar waxaan dhashay 1992 ayaan dhashay dugsigayga waa iskuulka Indonesia Al-Basiir oo ku yaala magaalada Muqdisho dugsi hoose dhexe markaan ka gudbay kadib waxaan wax ku bartay iskuulka Abi Xaniifa secondary ilaa form 4 form 1 ilaa iyo form 4 ku bilaabay hadeertaan oo aan nahay mid ka qalbiyay iskuulka 2020 waxaan ku biiray jaamacadda International University SIU oo ku taala magaalada Muqdisho oo hadda waxaan bartaa cilmiga social science and arts social work waatahay Cabdiqaadir waa mahadsan tahay waxaad wax yar inagu laabataa bal haddii aad soo dhameysay iskuulkaagii waxaa dhici karta in ay jiraan caqabado xilligaagii aad waday waxbarashadaada iskuulka ma jiraan wax caqabado ah oo adiga ka Cabdiqaadir ahaan aad isleedahay waa ku sigatay in ay ka joojiyaan waxbarashadaada sidaad ogtahay dadka aragala waa iska caqabad badan yihiin oo aragala faraka ah markaan dhameeyay dugsigayga hoose dhexe Al-Basiir markaan dhameeyay 2016 oo isla markaasna aan sameeyay guur oo aan guursaday kadib waxaa dhacday inaan aado iskuulkii dugsiga sare aan ka bilaabay form 1 inaan aado ayaa dhacday kadib markii iskuulka aan ku biiray waxaan sameyn jiray bajaaj ayaan kiraysan jiray ani iyo gabar oo isla deganeen degmada Holuulaad isla deganeen gabadhaas oo aan kiraysanay waxaan ku heshiinay $15 qofkii inuu bixiyo kadib maalmaha kamid ah waxaa halaabay mootadii ayaa halaawday kadib qaarnaas iyo Ustaad Abikar Xuseen Bashiir oo markaas gacanta igu hayo oo ilaa iyo hadda gacanta igu hayo caawiyo oo nolosheeda runtii qayb weyn ka qaatay ilaa iyo guurkeyga ayaa wuxuu yiri u shaaqay intaad qaadatid laamiga tag inta ka baxay laamiga tag baabuur ama bajaaj wax baad heli doontaa oo yani ku geey iskuulkaaga meeshii iskuulkaas uu ku yaal oo ku aaday kadib markuu ilaahay subaxdaas waxa aan sameeyay maadaama uu igu dhiirigeliyay subaxdaas waxaan sameeyay usheeda ayaa soo qaatay waxaan imaaday laamiga anigoo ka baqayo inuu baabuurka ijiiro oo gaari ijiiro ka baqayo ayaa laamigii la igoysiyay waxaan qabsaday baabuur gaari ayaan qabsaday oo PL ah Cabdiqaadir waana maalintii kuugu horeysay ee aad kaligaa socotay waana maalintii ugu horeysay oo kaligaa aan socdo marka alxamdulillah gaarigii wuxuu igu dejiyay iskuulkayga luuqii uu ku aadanaa calaamad ayuu ii lahaa horaan ba calaamadiis u xifdiyey meesha hotel Soomaali la yiraahdo ayuu igu dejiyay meeshii ayaan ka abaaray iskuulkayga anigoo iska ilaalinaya godad oo aad u baqdin qaba alxamdulillah iskuulkayga waa tagay maalintii labaad sidoo kale mooto waa ka ayday ilaa form 1 ilaa iskuulka aan ka dhameeyo waxaan marka dib ugu shalaayay lacagtii iga baxday mootada oo waxaan istaay mootada lacagta saakaaga bixi hadii saa ay wadada u fuuleedbo inaan baxay isaanba kugu fuuleedbo halaadan inaan mooto lacag isaga bixisid maba ahaanba waa tahay Cabdiqaadir sidoo kale waxaan salaameynaa halkan ka salaameynaa haddii uu ina daawana ama fariinteena ay gaarto Ustaad Abikar oo runtii ah macallin ama nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha naafada wax badan ka qabtay Cabdiqaadir waxaad inoogu noqotaa maalintii kuugu horeysay inoo sheegtay in
keligaa aaday iskuulka gaarigii aa qabsatay ilaa iskuulkaaga aa ka gaartay keligaa aad ahayd maxaa dareentay dareenkaaga siduu ahaa horta maalintaas waxaan isdahay inuu gaarigaa ku jiiri doono si aan hore kugu sheegaybo maalintaas waxaan isdahay inuu caqabad baa la kulmi doontaa maalintaas waxaan isdahay kuuma roonena isdahay laakiin maalintii labaad waan ku farxay runtii inaan naqdo qof keligiisa uu qaadanayo ee lugaynayo ee meeshuu laba aadayo mararka qaar waxaa dhacdo in gaari iyo biyo lacag aan kusoo raaco aanan haysanin isla markaana iskuulka dugteeda aan ku imaanayo 12 saac iyo bar ayaan xaafadeeda kasoo baxaa iskuulka wuxuu ku yaalaa waa beri xaafada horseeda ku yaalaa waxaa la yidhahdaa abi xaniifa howlwadaagan kasoo lugaynaya waxaan imaanaya iskuulkeyga imaanaya anigoo fiirinaya ku aadka oo iigu aadan yahay luuqa iskuulkeyga uu ku aadan yahay marka kadib waxaa la yaabay macalimiintii markaas joogay markii iskuulka oo aan tagay warniyo adiga yaa ku keenay iyo arrimahaas iyo warniyo waxaan dhahay aniga lugteydaan ku socdaa mararka qaar haddaan lacag helo waa mootaska soo raacaa mararka qaar haddaan waayo waxaan iskuulka kama soo dhaaqda cashirinayaan soo aadaa aniga hadba siyaan alxamdulilah nolosheeda ku maareeya marka waxaan aniga aaminsanahay qofka naafada ah ama anaga alaada ama lugaha ala aado waxay ku xiran tahay isleeyahay hadda sidii uu naftiisa iyo noloshiisa u maareeyo oo isaga u maamulo isku xilqaamo ayay ku xiran tahay waa tahay cabdiqaadir iskuulkaagii sare ama dugsigii sare waad soo dhamaysay maalintii kuugu dambeysay imtixaanka maadada ugu dambeysay aad intaad kasoo farxalatay aad miiska soo saartay dareenkaagu bal inaga waran maalinta ayada siduu ahaa wallahi my brother iskuulka imtixaanka form 4ka waan fadhiisanayay waa waxa igu dambeysay maadada xisaabta ayaa igu dambeysay oo maalintaas maada aad iyo aad aan ugu farxay ayuu ahaa imtixaanka dawladda ayuu ahaa maadadii kaleento igu dambeysay imtixaanka dalada FBNSne waxay ahayd maadada tarbiyada waa maadadii igu natiijada fiicnaa oo buundooyinka badan aan kaga tagay oo 159 aan keenay maadada igu badan ayay ahayd waa tahay cabdiqaadir waxaan gudagelaynaa arrimaha bulshada aan su-aalo kaa weydiin doona hadduu alla idmo waxaa inoo sheegtay in aad guursatay waqtigii aad dhiganaysay amaba aad soo dhamaysay dugsigii hoose dhexe aad u gudbi lahayd markii la gaaray dugsigaagii sare aan iraahdo bal guurkaagii bal inaga waran marka hore wallahi niyo guurkayga horta dadka Soomaaliyeed inta badan waxaa maskaxdooda ka guuxa su-aalo isweydiiyaan qofka naafada araga ka ah amba naafada araga ka ah waxay isweydiiyaan haddii gabadha uu guursanaayo waxay isdhaan ninkaan ma shaqaysan karo naagtiisa yaa u biilaayo nin wax qabsan kara ma ahan yaa u biilaayo yaanoo damaanad qaadayo gabadheena inuu noo biilaayo waxyaabahaas horta ay waalidiintu isweydiiyaan inta badan markii arrimaha guurka oo loo aado taasna bulshada Soomaaliyeed waxay ugu baahan tahay wacyigelin waa tan insha Allah aan u istaagi doonaa hadduu Ilaahay idmo aniga ahaan cabdiqaadir ahaan waxaa igu dhacay gabar ayaan doontay waalidkeedu waxa uu yidhi niyow gabadhaan waxay u baahan tahay in la biilo waxay u baahan tahay in laga fakaro waxay u baahan tahay nolosheeda in la maareeyo markii gabadhaan nolosheeda maareyn karo gabadheeda kuma siinayo yidhi mar rabo gabadheeda ani waxaan ahay inay u baahato mar rabo waan kasoo tagay gabadhii ani isjeclayn waan kasoo tagay ilaa iyo 7 gabdhood ayaa sidaas yani caqabadahaas aan kala kulmay oo dadka waalidka gabadhii sideedaad ayuu ilaahay ii sakiray ayadoo weliba u istaagtay oo dhaaday wiilkan hadduu arag laayahay iyo wuxuu yahayba sidiisa anaa ku rabo ayagoo waalidkeeda ku adkeeyey marka sidii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu fududeeyey in aan isguursano labadeena hadda waa isla noolnahay marka cabdiqaadir ma weydiisay markii ay gabdhahan kale ay ku diidayaan sababta ay kugu diidayaan adiga cabdiqaadir ahaan ma weydiisay qof diila karo wata caqabad kale ma jirto maahan oo wax kale maahan waa diin intaad u keenaysaa waa dhis oo keliya saa u maareynaysaa waa tahay intii aanan u gudbin gabadhan hadda ku degan sida aad ku heshay iyo sida aad guurkiina uu ku bilowday bal wax yar waxaa inoo gashaa xasaawahaagii gabdhahan kale ma idinkaa heshiiseen ma idinkaa ku qanacsaneed inaad doonatid horta aniga waxaan ahaa horta markii ugu horeysay waxaan ahaa nin naasaabo badan ayaan ahaa markii sidii ugu horeyso igu dhacdo waxa ay ahayd maalimaha kamid ah iyadoo haweenan kamid ah iyadoo ramadaan ay tahay 2015 ayay ahayd ayaa naag oo iskuulka albasiir imaaday ayaa hadda kahor aan shukaansaday oo la hadlay bs marka aan la hadlay lambarkeeda marka aan ka qaatay waxaan ku yidhi walaale lambarkaaga si lambarkeeda ka
imaatay habeenkii wacay way iga qabatay waa la sheekaystay waxaana qof arag la-aan ahay waa beriyaan deganahay waa ogtahay albasiiraan joogaa arday wax bartaanahay inaan ku guursadaa rabaa ogow waxay igu tiri oo kusoo dhaweynaya walaalow maasha allah arag la-aanta ilaaha kaa dhigay ardaynimadana waa iska dhamayn doontaa adiga isoo dhaweysay habeenkii labaad telefonka aan ku celiyo way iga qaban weyday waata waxaan isdhahay marka maxaa ugu sheegtaa isdhahay in arag la-aan aad tahay maxaa horta ugu sheegtay ya waata waxaan isdhahay marka inaad arag laadahay hadda kadib qofna u sheegin marka horta arrintaas waa jirtaa marka aniga waxaan ahaa xasaabaha gabdhaha anaa shukaansan jiray inta badan waxa ay u badnaayeen gabdhahan telefoneska shukaansana ay u badnaayeen oo lacaga aan ku khasaariyo lacaga aan ka waco ayaga mararka qaar isoo wacaan kulligooda waa isfahmi jirnay laakiin caqabada ugu badan waxay ka imaan jirtay dhanka waalidkooda ayagoo oo u aaneynayo ama u salaynayo in ay discrimination ku sameeyaan dadka aragala oy dhahanin aragla wax ma qabsan kariyo dadku qaar qabaa'ilada qaar inaan sheego marabo waxa ay aaminsan yihiin buris iyo yaamba ay aaminsan yihiin qofka haddii uu yaamba wato ama buris uu wato waxa ay aaminsan yihiin in gabadhooda uu maareyn karo laakiin aaminsan gabadhooda qof aragla oo qalin wax ku maareynayo oo wax qoraayo oo wax aqrinayo oo dhahayo aniga gabadha waa biilina waana shaqaysaa nintaan ma aaminsan inuu gabadhooda uu maareyn karo marka arrintaas ayaa waata waxay noo gashaa gabadhan hadda aawada joogtaan xiriirkiina suu ku bilowday siduu kusoo gabagaboobay wallahi my brother waxaa jira gabadhaan hadda aan isla joogno xiriirkeeda wuxuu ku bilaawday wiil walaalkeyga ah oo ani iga weyn ayaa horta lambarkeyga ayada soo siiyey kadib markuu soo siiyey way soo wacday aniga waayo hebel laga dhaabay kadib waa aniga markaas lacag iguma jirin waxaan nahay waayo caawan kusoo wacaya oo dhaqaraabaan nahay adeerkeygaa dhalay caawan kusoo wacaya baan nahay waayo igu tiri habeenkiia wacay anigana jaanis ayay ii ahayd fursad ayay ii ahayd macnaha jaaniskaasaa raadinaysa marka ayada walaalnimo ii soo wacday laakiin aniga waxaa u bedelay walaalnimo iyo guura u bedelay waata marka waxaan ka dhamaystay adiga ilaa iyo 4 bilood isla socday oo ka dhameeyay guur ka dhameeyay alxamdulilah kadib guurkeygii usaagadin karo ala khayr allah siye uu igu saaciday asigaa ii guuriyey lacagaa laga bixiyey ayagoo waalidkii isku adkaynayaan waxaa la yiri ninkaan waxaas wuu biilan karaa wuu shaqaysan karaa wixii aa laga dhaadhiciyey ayadana waxay tiri aniga ninkaan sidiisa anaa kurab maadaama ay tiri lacagtii aan bixinay sidii ayaa gabadhii guri laga keenay gabadha gobol ayaa laga keenay farxaana deegaan la yidhahdo oo gurigoodi agteeda ku yaal laakiin waalidka way kasoo horjeedeen oo waxaaba guurka kumay qanacsaneen kuma qanacsaneen welibu dadka qaar waxa ay dhahayeen wiilkaan haddii uu guursado gabadhaa ma biili karo maxaa lahay aabaheedi iyo hooyada intay soo wacato waxay leedahay maxaa lahay aniga maanta wax meesta isaacid maantana waxay joogtaa in aniga wax allaale waxaan hel waalidkeeda aan u diro oo idhaan oo waalidkii ugu qanacano dhahan inta gabdha naga qabtaadaan noogu fiican inay dhahaan waa tahay cabdiqaadir waa guursatay ilaahay guri wuu ku dejiyey adiga aad leedahay oo aad mas-uul ka tahay cunug baa ku dhashay oo markii kuugu horeysay ee aabba aad noqo cabdiqaadir ahaan adiga dareenkaaga siduu ahaa subxaan allah niyo warka aadaa u farxay aad ayaan u farxay maalintii gabadha ii dhalatay oo caaisha la yidhaahdo aad iyo aad ayaan u farxay runtii barbaaqa ayayna ii ahayd ilaahay subxaanahu watacaala waa uga mahad celiyey aada ugu mahad celiyey waana ku farxay runtii waa tahay cabdiqaadir shaqada guud ahaan hadda aa qabatay sidaa hore kugu sheegay ba arrimaha bulshada ayaan ka shaqeeyaa oo maxaa gargaarka iyo bulshada ayaan ka shaqeeyaa oo dadka naafada ayaan u shaqeeyaa marka waa wacyigeliyaa sidii xuquuqdooda u heli lahaayeen sidii waxbarasho siman u heli lahaayeen sida arrimaha siyaasadii ugu soo dhex muuqan lahaayeen ayaan ka dhex shaqeeyaa waa tahay shaqana waa qabataa bulshada u shaqeysaa jaamacadina waa dhigay waxbarashadii iyo shaqadii sidaad isugu keentaa khamiis iyo jimco ayaan jaamacadda dhigtaa maalmaa kalena waa shaqeeyaa aad iyo wax caqabad ah oo dhanka waxbarashada oo ka haysta hadda alxamdulilah maalintii oo sida iskuulkaan kuu sheegay maalintaan bilaabay jaamacadda caqabad waa dareemayo oo waa dareemi kartaa jaamacadda waxay ku taalaa lamber 4 qaybtaana cabdiqaasim ay ku taalaa cabdiqaasim waa wadada ugu daran iyo maka almukaram waa wadada ugu daran ee jaamka baabuurta iyo bajaajyaasha iyo ugu dhibka badan waay waxaan ka welwelay marka in yani sidee ku maareen doontaa khamiis iyo jimcaha lacagtii aad ku maareen lahayd maadaama shaqadii oo ay runtii iska yartahay hadday ordun tahay ee bilaaw iska tahay oo wax mushaara ay meel saarneen waxaan isdhahay sidee ku maareen doontaa wata alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala ayaan weydiiyey
waxaan ka soo qaaday sir noloshii hore iskuulka ay caali u ahayd inay intada caali ii noqoto oo markaan helaan mootoraa markaan waayna aan iska lugeeyo marka kaleeto inaan gaari iska raaco gaarigi inuu wadada cabdiqaasim ugu dejiyo qof inuu igoysiyo wadada sidaas jaamacadda aan ku tago tooska oo meel walba waa inay cabiran tahay waa tegi karaa intaasaa ku dhaaraya cabdiqaadir marka ma jiraan wax fariin ah oo aad u diraysid daawadayaasha ku daawanaya haddii ay jiraan waxyaabo adiga qaas ahaan cabdiqaadir ahaan aa u diraysid anigu waxaan leeyahay bulshada laba qayb waaye qaybta hore waxaan u dirayaa horta qaybta horta naafada u diraya naafada fariinta oo naafada aan u diraya meel kasto ay joogaan ay dhegeysanaya naafadu waxaan u dirayaa in hurdadu ay ka kacaan ay ka mid naqdaan bulshadan ay iyagu wax qabsadaan oo iyaga isku filnaadaan oo waxbarashada u kala ordaan oo raadiyaan xuquuqdooda meel walba ay joogaan oo iyaguna isku xirnaadaan ayaan fariinooka ugu dirayaa naafo maanta cid uma naqda ceelna uma qodno ilaahay subxaanahu watacaala ayaa garabkooda oo keliya ah marka naafada xuquuqdooda in ay raadsadaan oo aan fariin aan ugu diraya bulshada kalena waxaan ayagana u dirayaa oo fariina waxaan leeyahay walaaliina naafada garab istaaga xuquuqdooda siiya haddii tahay waxbarasho haddii tahay shaqo in shirkadaha kambaniyaasha iskuulada haddii tahay jaamacadaha naafadu barofesore ayay leeyihiin macalimiin waxay ayay leeyihiin in shaqooyinka laga qaybgeliyo macala shirkadaha dawladda siyaasadaha ganacsatada dhammaan in laga qaybgeliyo ayaan u dirayaa insha allah waa tahay marka cabdiqaadir su-aasha ugu dambeysay aan ku weydiinayno haddii aanu nahay bahda rajasida media waxay tahay qisadii kuugu xanuunka badneed ee intii aad soo noolay niyahow alxamdulilah qisadii igu xanuunka badneed oo inta aan soo noolahay igu dhacdo ma jirto waa tahay haddii aan janis ku siino waayo soomaali badan baa ku daawanayso ama ku dhegaysanayso yaad halkan ka salaami lahayd waxaan halkan ka salaamayaa ustaadkayga aabahayga saaxiibkayga walaalkayga ustaad abikar xuseen bashiir iyo dhammaan bulshooyinka soomaaliyeed ayaan halkan ka salaamayaa iyo dhammaan samafalayaasha ee u taagan walaalahooda bulshada soomaaliyeed kuwa naafada ay kuwa aan ahayn iyo kuwa taagta daran ee garab istaaga mar walba oo yihiin u garab istaagan dhammaan waan mahad celinayaa samafalayaasha bulshada soomaaliyeed dhammaan insha allah adigana waan ku mahad celinayaa brother waan ku salaamaya waa tahay cabdiqaadir waxaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ee aad inoo hortay kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir muxyidiin abuukar oo barnaamijka marti ku ahaa qadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira waxaan intaas kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena gaarka aan ku eegeynay arrimaha naafada ama xaalada guud ee naafada gaar ahaan cabdiqaadir muxyidiin abuukar waana uga mahad celinaynaa